kulan wacan daawadayaal halkani waa warbaahinta idaacadda codka dowladda hoose ku soo dhawaada qodobada warka duhur waxaana ugu waaweyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo dhagax dhigay xaruntii gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose ee Xamar gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhanka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta oo kulan la qaadatay shaqaalaha ka shaqeeya nadaafadda aqalka dowladda hoose maamulka gobolka Banaadir oo degmada Xamar Jajab ka daafuray barnaamij lagu wacyigelinayo haweenka ku nool degmadaasi gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti oo ku guuleystay gudoomiyenimada baarlamaanka midowga Afrika iyo baarlamaanka wadanka Ciraaq oo kulan degdeg ka yeelanaya kadib iscasilaadii uu iscasilay ra'iisul wasaaraha wadankaasi waa 30 bisha 11 ee November sanadkuna waa 2019 u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa maanta wuxuu dhagax dhigay xaruntii gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose ee Xamar waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir dhagax dhigaasi ku weheliyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose ee Xamar Ibrahim Cumar Mahad Allah Ibrahim Dheere gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in 30 sano kadib ay ku faraxsan yihiin haddii ay yihiin dowladda hoose iyo maamulka gobolka Banaadir in la dhagax dhigo xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose ee Xamar waxa uu sheegay in xilligii barismaadkii xaruntan ay shaqo wanaagsan qaban jirtay isla markaana hadda la doonayo in shaqo wanaagsan ay qabato gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay inuu dib u soo celiyo haybadii iyo karaamadii ay lahayd caasimadda Soomaaliya Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka reer Muqdisho looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo sidoo kale wadooyinka ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhanka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Basma Amir Jaketi ayaa maanta xarunta aqalka dowladda hoose waxay kulan kula qaadatay shaqaalaha ka shaqeeya nadaafadda xarunta aqalka dowladda hoose gudoomiye Basma Amir Jaketi ayaa waxa ay sheegtay in kulankan ay gol leedahay dardargelinta shaqada dowladda hoose ee Xamar iyo sidoo kale sida shaqaalaha ka shaqeeya nadaafadda xarunta aqalka dowladda hoose kor loogu qaadi lahaa Basma Amir Jaketi ayaa waxa ay sidoo kale warbixin ka dhageysatay horjoogayaasha shaqaalaha nadaafadda ka shaqeeya ee xarunta aqalka dowladda hoose waxaana sheegtay in shaqo wanaagsan ay qabteen oo ay warbixin wanaagsan ka siiyeen shaqooyinka ay hayaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale waxay ammaan u jeedisay shaqaalaha ka shaqeeya dhanka nadaafadda oo tilmaantay in shaqada ugu adag ee dowladda hoose ee Xamar ay hayaan dowladda hoose ee Xamar ayay sheegtay inay ka go'an tahay inay kor u qaaddo bilicda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay la mid noqoto caasimadaha caalamka ku yaala kuwooda ugu horumarsan maamulka gobolka Banaadir ayaa degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir wuxuu ka furay barnaamij lagu wacyigelinayo haweenka ku nool degmadaasi kulankan oo soo qabanqaabisay ururka haweenka maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa mid haweenka lagu bareeyay ka shaqeynta amniga siyaasadda iyo sidoo kale sida ay uga qayb qaadan karaan doorashada soo socota ee sanadka 2021 Basma Amir Jaketi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir oo halkaas ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in haweenka ku nool caasimadda Soomaaliya ay yihiin haweenka ka qayb qaata horumarada kala duwan waxayna xustay in haweenku ay door wanaagsan ku leeyihiin amniga siyaasadda iyo sidoo kale sidii lagu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka soo socda sidoo kale waxa halkaas ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Maxamuud Jawaahir Barqib waxayna sheegtay in barnaamijkan laga hirgelin doono dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir haweenkana ay qayb ka qaadan doonaan amniga iyo siyaasadda sidoo kalena ay door muhiim ku yeelan doonaan arrimaha doorashooyinka soo socda gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Djibouti ayaa ku guuleystay gudoomiyenimada baarlamaanka midowga Afrika gudoomiyaha oo shir jiraad qabtay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in majaraha dowladda Djibouti ay u qabato gudoomiyaasha baarlamaanka midoobay ee qaaradda Afrika wuxuuna sheegay inay ka faa'iideysan doonaan dalalka ku yaala bariga Afrika madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa war uu soo saaray wuxuu ugu hambalyeeyay gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Djibouti oo noqday hoggaanka baarlamaanada midowga Afrika wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay guushan dowladda Djibouti ay ka soo hoysay baarlamaanka qaaradda Afrika ugu dambeyntiina baarlamaanka wadanka Ciraaq ayaa yeeshay kulan degdeg ah oo ay ka hadlayaan iscasilaadii ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu iska casilay xafiiska ra'iisul wasaaraha wadanka Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa laga soo saaray war ku aadan inuu iska casilay xilkii ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa waxa uu sheegay in uu baarlamaanka u gudbiyay warqad iscasilaada si baarlamaanku u soo xusho ra'iisul wasaaraha bedeli doona ama xukuumadda bedeli doonta arrintan ayaa ka dambeysay ka gadaal markii banaanbaxyo ay ku dhinteen ku dhawaad 40 qof ay ka dhaceen wadankaasi Ciraaq warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyaha idaacadda codka dowladda hoose waa naga inta